waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada channelkiina barasho. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar kambalelka fursad la socota fiidiyoda cusub aan soo gelin doono insha Allah. Maanta waxaanu ka hormari doonaa faa'iidooyinka laga helo afakaadhada. Haddaba xaggan waxaan ku sheegi doonaa insha Allah 11 faa'iido oo laga helo afakaadhada. Afakaadhadu waxay ka mid tahay cuntooyinka la isku raacay inay yihiin superfood. Waxaa ku jira saliido jirka iyo timaha faa'iidooyin badan u leh. Afakaadhada waxaa laga sameeyaa waxyaabo badan caafimaadka iyo qurux loo adeegsado sida kareemada wajiga la marsado, dawooyinka timaha la mariyo iyo weliba shaambooyinka lagu qubaysto. Faa'iidooyinka afakaadhada ee marka khudar ahaan loo cuno ama cabitaan ahaan loo shiito ama korka lagu dhaashado waxaa ka mid ah: 1. Waxay daaweysaa cudurrada dubka ama maqaarka ku dhaca sida psoriasis ama eczema oo ah cambaarta, acne oo ah laalaabka wajiga, wrinkles oo ah qalaylka maqaarka iyo qaar kale oo fara badan. 2. Afakaadhada waxaa ku jira monounsaturated fats sida phytosterols iyo antioxidants sida vitamin E oo jirka nafaqo badan u yeela. 3. Waxay bixisaa timaha ayay nafaqo badan u leedahay oo bixisaa. 4. Waxaa ku jira monounsaturated fats sida cholesterolka dejinta u fiican. 5. Fatty acid oo hoos u dhiga khatarta wadnaha xanuunka. 6. Waxay ka hortagtaa kansarka. 7. Waxay u wanaagsan tahay dumarka uurka leh inay cunaan. 8. Waxay hoos u dhigtaa dhiig karka. 9. Waxay kobcisaa caafimaadka indhaha. 10. Waxay caawisaa luminta miisaanka ama cayilka. 11. Waxay la dagaalantaa afqarmuunka. Haddaba afakaadhada sida wajiga loogu qurxiyo, waxaad isku dartaa jeex ama haaf afakaadho ah iyo hal qaado oo malab ah iyo hal qaado oo caanaha garoorka ah yogurt. Caanaha garoorka ah waxay u fiican yihiin finanka wajiga sababtoo ah waxaa ku jira maadada loo yaqaano lactic acid oo bakteeriyada disha. Wajiga iska mayr biyo qandac ah, farahaaga si fiican u nadiifi, kadibna waxaad wajiga marsataa afakaadhadii iyo malabkii iyo caanihii yogurtiga ahaa kii aad isku qastay adigoo u daynaya muddo 1 saac ah. Kadibna iska mayr oo iska qallaji shukumaan nadiif ah ama tuwaal nadiif ah. Maaska ahaan wajiga ayuu ifiyaa. Waxa uu baabiyaa finanka iyo haaraha. Sida afakaadhada timaha loogu nafaqeeyo, waxaad isku qastaa jeex afakaadho ah iyo 2 xabo oo ukun ah, qaybta jaalaha ah ee ukunta ama egg yolk loo yaqaano ama qaybta huruudda ah ee yar ee ku jirta, iyo 2 qaado oo saliid saytuun ah. Kadibna timaha mari oo madaxa bax ku xiro adigoo u daynaya muddo 20 daqiiqo ah. Kadibna iska mayr adigoo isticmaalaya biyo qabow iyo shaambo usbuucii 2 jeer. Sidaan samee. Maaski ahaan waxaad ka faa'iideysaa timuhu way ku dheeraanayaan, salka ayayna ka adkaanayaan oo si fudud kuma go'ayaan. Intaa waxaa dheer, qurux iyo dhalaal ayaa u siyaadaya timahaaga insha Allah. Daawadayaal, sidaan sheegnay faa'iidooyinka laga helo afakaadhadu aad uma koobna. 11 faa'iido iyo 2 kale faa'iido waaweyn ee ka dambeeya sida wajiga loogu nadiifiyo iyo sida timaha loogu nadiifiyo. insha Allah waad ka faa'iideysan doontaa. Wixii macluumaad ah ee aad ka qabto intaa dheer waxaad noogu reebi doontaa insha Allah commentiga. wixii casharana idiin soo diyaarin doonaysaan idiin soo diyaarino insha Allah commentiga ay noogu reebi doontaan. wixii cabasho ah ee ka qabtaan mar labaad commentiga noogu reeba. sidii aan hore idinku sheegnay, fadlan subscribe noo saar kambalelka furo insha Allah. channelka iyaga magaciisa waad garanaysaan, markuu notification ku idiin soo dhaco insha Allah waad la socon doontaan. Wassalamu alaikum warahmatullahi for watching. Please subscribe and like, comment and share.